8 dhalinyaro oo baratay xirfadda kalluumaysiga isla markaana kamid ah muruqmaalka dhinaca badda ee degmooyinka Saylac iyo Luhaya ayaa shahaadooyin la guddoonsiiyay iyaga oo sidoo kalena lagu wareejiyay laashash nooca kalluumaysiga ah mashruucani oo ay maalgelisay hay'adda Mareykanka u qaabilsan deeqaha Afrika ee magaceeda loo soo gaabiyo USADF isla markaana ay fulinaysay hay'adda wadaniga ee Ayoda ayaa ka dhacay magaalada Saylac ee xarunta u ah gobolka Salal xafladani oo ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiinta gobolka Salal kuwa degmada Saylac iyo sidoo kale mas'uuliyiinta hay'adda wadaniga ee Ayoda iyo waliba xirfadlayaashii dhamaystay barashada kalluumaysiga iyo mas'uuliyiin kale waxa kale oo goob joog u ahaa halkaasi mas'uuliyiinta wasaaradda kalluumaysiga iyo khayraadka badaha iyo waliba dadweyne kale oo aad u tiro badan munaasabadani ayaa waxa ugu horeyn ka hadlay madaxa mashruucani mudane Maxamed Aadan Ibrahim oo loo yaqaano D Aadan iyo sidoo kale agaasimaha hay'adda Ayoda mudane Siyaad Umar Ali waxaana hadaladoodii kamid ahaa ujeedada isku nimidnay hadalka badan maayo ayuuman dhowr daray kooban doona number 1 maanta waxaan halkan u joognaa waa inaan soo gabagabeyno mashruuc muddo ka socday gobolka Salal dhalinyaradaas maanta xuquuqda u dhiman waxay ku leeyihiin qaranka Soomaaliland bay ku leeyihiin qaybta kalluumaysiga waxaa isteeda 20 kala kala jibin labada degmada lagu hayay Saylac uga faa'iideystaan maanta 14 inaan qabanay marka fursadii hal meel ku urur lahayd anagoo eegana suuqa dhimaankiina halkii isteeda 20 wadada laga qaadan lahaa waxaan u kala jibinay maadaama deegaanadeedii duufaanada dhacay xoolihii baa dhamaaday ahmiyadu waxay tahay qorshaha dadka dib u dejinta loogu sameeyo in baddu qayb ka noqoto waxa kale oo isna halkaasi ka hadlay madaxa maaliyadda ee hay'adda Sooka oo iyadu mashruucani qiimeyn ku sameeysay mudane Maxamuud Cilmi dhanka kale waxa iyaguna halkaasi mahadnaq iyo ammaan ballaaran uga soo jeediyay hay'adda Ayoda maayirka degmada Saylac ahna gudoomiyaha golaha deegaanka mudane Saacad Daahir Cige iyo sidoo kale isuduwaha wasaaradda kalluumaysiga iyo khayraadka badaha Cabdulqaadir Ismaaciil Jaamaciin Galool aqoontii aad soo barateen 3 bilood ee barayay oo macalinku barayay inaad ka faa'iideysan doontaan oo muxuu ahay gudinku aad ka faa'iideysan doontaan ayaan tigir rajeenaya in kulli waxa jira ee kuwa kale dadkeenu waxa xoolo ka dhamaaday dadkeenu waxa yiigsanaya waxa weeye waa magaalada marka la yiigsanayo tii camal weeyaan tii wax taa badalay ilaahay maxadii weeye anigu mudadii aan halka joogay hawl isku xiran oo tababarkii iyo fulintii iyo gebagabadii wixii lagu tababarayay iyo waxay ku shaqo tagayeen intaan joogay tamarkan halka ugu horeeya gobollo kale joogay way ka dhici jireen laakiin hadda waa alxamdulillah hay'adda implementation ka lahayd Ayoda hay'adda maalgelinta lahayd oo halka boorka USADF iyo mid u dhaxaysa oo support sidoo kale waxa halkaasi isaguna hadal kooban ka soo jeediyay macallinkii bixinayay tababarkani mudane Faysal Ibrahim Cilmi Kinkok oo sheegay in ay durba dhalinyaradani ku shaqo tageen xirfadii ay barteen iyagoo uu sheegay inay laashashkani ka soo kaxeeyeen magaalada Berbera ee xarunta gobolka Saaxil waxaan gaarsiinay ilaa heer laashashkii way u doontaan gudoomiye ay u doontaan Berbera ay u gacantooda ku soo kaxaystaan oo cid kale loo adeegsan oo iyagu keenay iyagoo nabad qaba oo dad qaba iyagii agabkii ay siteen marka macallimada iyo tababarka aan siinay wuxuu noqday tababar lagu guuleystay waxa iyaguna halkaasi ka hadlay gudoomiyaha iskaashatada kalluumaysiga ee degmada Saylac mudane Saleebaan Maxamuud Abaadir iyo waliba mid kamid ah dhalinyaradii ka faa'iideysatay mashruucaasi ugu dambeyntii barasaabka gobolka Salal mudane Mawlid Maxamed Nuur oo halkaasi hadal mahadnaqa uga soo jeediyay hay'adda Ayoda iyo sidoo kalena la dardaarmay xirfadlayaashii ka faa'iideystay fursadani ayaa waxa uu yiri waxaan sidoo kale si gooniyo ugu mahad celinayaa hay'adda Ayoda oo adeegan raadisay tacab dheer noo martay dariiqo dheer noo martay waxaan sidoo kale u sii mahad celinayaa sarkaalka ka socda Sooka oo ah iyadana hay'adda mashruuca dabagalisay ee monitor garaynaysa laakiin waxaan u baahanahay maanta inaan wax ka bedelo hore waxaan u rajeynayaa 14 qof ee tababartay inay noqdaan iyagu kuwa 4 bilood soo socda 14 kale tababar guntii iyo gabagabadii
waxaa shahaadooyin la guddoonsiiyey dhallinyaradii baratay xirfadda kalluumaysiga dhinaca badda waana mashruucii ugu horreeyey ee nuuciisa ee gobolka Sanaag laga hirgeliyo muddo 30 sano ah maxamed cawaala daahir Home Cable TV Saylac